daawadaha qiimaha badan intaan u gudagalno muuqaalkeena fadlan taabo bananka like rukumo oo subscribe saar channelka imankana aan gudagalno muuqaalkeena markii aan aragno dad soo bandhigaya awoodo aan caadi ahayn dhamaanteen waxaan u maleynaa sixir laakiin xaqiiqdu waxay tahay in awoodahan uu Allah dadku ku maneysto qaarna ay ku yimaadaan sababna looga dhigo dadaalka uu la yimaado insaanka sidaa daraadeed waxaan muuqaalkeena maanta ku eegi doonaa 19 qofood oo leh mucjisooyin la yaab leh kuwaasoo aadan aaminaynin in adduunkan kuwala nool yihiin. Number 19 ninkii korontada ahaa. Inkastoo dhammaan dadka aan ka hadli doono ay leeyihiin mucjisooyin la yaab leh, waxaan ku bilaabaynaa Raj Mohan Nair kaasoo awood u leh inuu ku istaago koronto qof dili karta isla markaasna jirkiisa korontada ku xiran uu ku kiciyo mashiinada qudaarta lagu shiido. inkastoo dhaqaatiirtu ay ninkan horay ugu direen digniin la xiriir in laga yaabo inay ku dhacaan cilado la xiriira xagga aragga, haddana Raj Mohan Nair kama hor istaagin inuu sii wato bandhigidiisa wuxuuna jirkiisa ku xiraa koronto awood badan 10 jibaar mid uu adkeysan karo qofka caadiga ah. Number 18 artistihii aragga la'aa. weli ma aragtay qof indhihiisa fiyow yihiin laakiin xirtay si uu hawl u qabsado? dabcan maya. sheekadana qaybtan waxay ku saabsan tahay Ashraf Ermagan kaasoo ku dhashay arag la'aanta yaraantiisii ma helin iskuul waxbarasho mid tababar midna farshaxankana wuxuu bilaabay markii uu ahaa 6 jir. daada dhalinyaronimada markii uu gaaray Ashraf wuxuu bilaabay in farshaxankiisii uu rogo dhanka kale wuxuuna bilaabay inuu sawiro farshaxanada ay sameeyaan dadka uu araggooda dhammaystiran yahay. hadda Ashraf wuxuu dunida dacaladeeda ku leeyahay in ka badan 20 madxaf kuwaas oo ku soo bandhigo farshaxanadiisa. ninkii birlabka ahaa. ninkan waxaa lagu magacaabaa Magola wuxuu dhashay 1958 wuxuuna awood u leeyahay in jirkiisa uu ku soo qaado ama uu ku soo qabto waxa ka samaysan birta. khaas ahaan wuxuu adeegsadaa maskaxdiisa waxayna maskaxdiisa la falgashaa walxaha uu qaadayo. dad badan ayaa shaki ka muujiyay doodan ka keenay mucjisooyinka Magola, laakiin wuxuu sameeyay mucjisooyin kale taasoo ah in dadka hortooda uu ku sameeyay mucjisooyinkiisa lagana daawanayo TV-ga wuxuuna aaminsan yahay in mucjisooyinkan ay siiyeen yoogada. ninkii cunada ka dhigtay wax walba. ninkan waxaa lagu magacaabaa Mansoor Mangadawat waana ninka ugu la yaabka badan dunida. Mansoor Mangadawat wuxuu awood u leeyahay inuu cuno wax walba. wuxuu si public u muujiyay itaalka uu ahaa inuu cuno wax walba. kaliya 9 sano ayuu jiray markii waalidiintiisa ay ku qabteen isagoo cunayo dhalada TV-ga. goor dambe uu gaboobay waxaa u suurta gashay in diyaaradan uu ku cuno 2 sanadood. si kastaba ha ahaatee dhaqaatiirtu waxay go'aamiyeen in ninkan uu leeyahay dheefshiid iyo calool aan caadi ahayn. waxaa sidoo kale mucjiso ah sida ninkan uu weli ku nool yahay. ninkii loogu magac daray kaameradii ibni aadamka ahayd. ninkan waxaa lagu magacaabaa Stephen Wiltshire wuxuu dhashay 1974 waxaa loogu magac daraa kaameradii ibni aadamka ahayd. wuxuu awood u leeyahay inuu sawiro magaalooyinka isagoo hal mar ku dul maraya diyaarad kana sawiraya xusuustiisa. wuxuu si dhammaystiran xusuustiisa u bedelaa sawir. kaliya wuxuu u baahan yahay inuu helicopter ku dul maro goobta uu doonayo inuu sawiro. sidaa daraadeed mucjisooyinka Steve waxay soo jiiteen dhaqaatiirta neurologiga waxayna ku tilmaameen qof leh maskax aan caadi ahayn. Jyothi Raj. ninkan u dhashay dalka India waxaa lagu magacaabaa Jyothi Raj waxaana loo yaqaanaa oo kale boqorkii daanyeerada. wuxuu awood u leeyahay in isagoo aan isticmaalaynin wax xarig ah uu fuulo buuro dhaadheer oo qiyaastii gaaraya 200 oo cagood. wuxuu sheegay in farsamooyinkan uu ka bartay daanyeerada. arrinta kale ee la yaab kale waxay tahay in Jyothi uusan u sameynin arrimahan qaab sporti ah kaliya wuxuu u sameeyaa qaab madadaalo. la yaabka kale ee ninkan laga diiwaangeliyay wuxuu yahay in xitaa uu luuqad yaqaano daanyeerada. Dakshon Abong. ninkan waxaa lagu magacaabaa Dakshon Abong wuxuuna awood u leeyahay in 90 second uu ka cabo biyo gaarayo 4 litir iyo bar. mucjisooyinka uu leeyahay Dakshon waxaa ka mid ah inuu awood u leeyahay inuu dib u soo celiyo biyuhu uu cabay. waxaa jiray nin isagoo kale ah oo arrintan horey u sameeyay waxayna dad badan la noqotay arrin halis ah taasoo keeni karta dhimasho haddii uu qofku joogteeyo sameynteeda. qowmiyadda Moken. dad kale mucjisooyinkaan caadiga ahayn waxaa ka mid ah qowmiyaddan lagu magacaabo Moken ee degta galbeedka dalka Thailand. waxyaabaha la yaab kale ee laga soo wariyay dadka ka tirsan qowmiyaddan waxaa ka mid ah
inay awood u leeyihiin inay biyaha ka dhex arkaan wax walba in ka badan dadka caadiga ah. qaabka ay u samaysan yihiin indhahooda waxay aad uga duwan yihiin dadka kale, taasoo awood u siisay inay ka dhex jilaabtaan badda dhexdeeda iyagoo aan isticmaalaynin wax muraayadaha ama qalab ah. boqorkii ilkaha. laga yaabaa inaad hore u maqashay ninka ugu xoogga badan dunida. waxaan ku hayaa ninka ugu ilkaha xooggan dunida, kaasoo loogu magac daray boqorka ilkaha. ninkan magaciisa dhammaystiran waxaa loo yaqaanaa Veru, wuxuuna awood u leeyahay in ilkihiisa uu ku qabto kaabo ka samaysan bir kuna jiido tareen aad u dheer magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. tareenada Veru uu jiido culeyskooda waxaa lagu qiyaasaa 300 tan. Veruna wuxuu ka mid yahay dadka leh mucjisooyinka ugu yaabka badan dunida. tuugsadihii Thailand ee ka yaabiyey caalamka. waxaa laga yaabaa inaad hore u maqashay wax lagu magacaabo indhasarcaad. ninkan aan hadda ka hadli doono wuxuu ka mid yahay dadka ku dabarsada wadooyinka dalka Thailand, wuxuuna soo bandhigay bandhigan lagu magacaabo telekinesis, wuxuuna noqday wax uu kaga duwan yahay dadka kale, isagoo caan ka noqday gudaha dalkiisa iyo daafaha caalamka. Isao Machi. ninkan waxaa lagu magacaabaa Isao Machi, wuxuuna ka mid yahay qowmiyadda samurai ee ku dhaqan dalka Japan. wuxuu ninkan awood u leeyahay in wax walba oo uu lagu soo tuuro uu kala jaro labo, waana ninka ugu dhaqsiyaha badan ee u kala jari kara wax walba si dhaqsi leh. xitaa waxaa mar lagu soo tuuray rasaas caag ah, taasoo uu ku guulaystay inuu la haleelo seeftiisa. wuxuu sidoo kale 7 jeer ku guulaystay shahaadada World Guinness Record, taasoo ay bixiso majalada Guinness. ninkii loogu magac daray calculatorkii ibni aadamka ahaa. awood uu ninkan u leeyahay inuu xisaab isku daro, kala jaro, isku dhufto, isu qaybiyo, sidoo kalena soo raadiyo square root-keeda. ninkan waxay ku qaadanaysaa muddo aad u yar. ninkan magaciisa dhammaystiran waxaa loo yaqaanaa Kevin Scott, wuxuuna 2001 jebiyey rikoor hor u yaalay, wuxuuna noqday ninkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee xisaab ku xaliya waqti aad u yar. Stig Severinsen wuxuu kaliya hal jeer neefsaday 22 daqiiqo. cajiib. ninkan waxaa lagu magacaabaa Stig Severinsen, wuxuuna shahaadada PhD ka diyaariyey culumta caafimaadka, wuxuuna u dhashay waddanka Denmark. Stig wuxuu ka qayb qaatay dhowr tartan oo ka dhacay daafaha caalamka isagoo matalayay dalkiisa Denmark. wuxuu awood u leeyahay isagoo ku dhex jira biyaha dhexdooda amin la eg 22 daqiiqo inuu kaliya neefsado hal jeer. aabihii libaaxyada. sida aan dhammaanteen la socono, xayawaanada khatar ayay ku noqon karaan nolosha bini'aadamka, waxayna ka mid yihiin sidoo kale noolayaasha halista ku ah nolosha bini'aadamka. laakiin waxaa jira dareen aad u weyn oo laga helo xayawaanaadka, waxayna dareenkaas u muujiyaan qof walba oo la macaamilo. sheekada qaybtan waxaa ku eegaynaa nin lagu magacaabo Kevin Richardson, kaasoo saaxiib la ah libaaxyada. wuxuu habeenii maalin kula hoydaa xerada xayawaanada libaaxyadan, iyagoo weligood aan u geysan wax dhibaato ah. wiilkii laastiga ahaa. ninkan waxaa lagu magacaabaa Daniel Browning, wuxuu dhashay sanadii 1979. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa wiilkii laastiga ahaa. Daniel wuxuu awood u leeyahay in jirkiisa uu sida laastiga oo kale u laalaabo. mucjisooyinka la xiriira arrintan oo Daniel sameeyay waxaa ka mid ah inuu mar ku guulaystay inuu dhex galo sanduuq aad u yar, ayna ku adag tahay dadka caadiga ah inay dhex galaan. Master Cajiib. Gary Turner wuxuu ka mid yahay dadka leh mucjisooyinka aan caadiga ahayn. wuxuu leeyahay maqaar laastig ah oo ay sababtay xaalad loo yaqaano Ehlers-Danlos oo ah in disorder uu ku dhaco connective tissue-ga. Gary dhererka maqaarkiisa markii uu soo jiido wuxuu gaaraa 7 inji, xitaa kan garkiisa ku yaala ayuu ku soo laabaa afkiisa. wuxuuna sidaas ku galay buugga World Record Guinness, ninka ugu maqaarka jiijiidan caalamka. Dynamo Jack. intayna u guda galin qofka saddexaad, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelka, like-na ku qotaan muuqaalka. intaas haddii aan isku fahnay, aan sii socono marka. ninkan waxaa lagu magacaabaa Dynamo Jack, wuxuu u dhashay dalka Indonesia. waxaa la sheegaa ninkan inuu awood u leeyahay inuu jirkiisa ka dhaliyo korontada ku jirta jirkiisa uu sheeganayo waxaa laga dareemaa jirkiisa. sidoo kalena wuxuu u adeegsadaa inuu ku gubo buugaagta iyo waraaqadaha. Shaolin Monk. tani waa mid kaa yaabi doonta. dhammaan dadka leh mucjisooyinka iyo awoodahan caadiga ahayn
waxaa ka mid ah ninkan lagu magacaabo Shaolin Monk. Monk wuxuu adkeysan karaa wax walba oo halis nagu ah dhammaanteen, sida in fiilo kaabo ka samaysan qoorta loogu xiro laguna jiido, ama in mashiin bir ka samaysan madaxiisa lagu dalooliyo, ama in walax ka samaysan bir qoorta loogu duuduubo, ama in meel fagaara ah burs lagula dhaco, ama in xitaa uu dad qoortooda waran uu iskaga qabto qoorta. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Alex. Waxaa la sheegaa ninkan inuu ka mid ahaa dadkii ugu xifdinta iyo xusuusta badnaa ee caalamkan soo maray. waxaa sidoo kale la sheegaa 13 jirkiisii in buugta uu akhriyo uu ka jawaabi jiray su'aal walba laga weydiiyo buugtaas. sidoo kalena markuu wax akhrinayo, ishiisa midig ee akhrin jirtay bogga midig, ishiisa bidixna ee akhrin jirtay bogga bidix. waxaa sidoo kale la sheegay in hal galab kaliya uu ka xifdiyey kitaabka ay aaminsan yihiin Kiristaanka. ninkan wuxuu geeriyooday sanadii 2009. walaalka qiimaha badan, haddii uu jiro qof kaa yaabiyey intaan ku guda jirnay muuqaalka, fadlan noogu reeb qaybta kommentiga. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar channelka, like na saar muuqaalka. mahadsanid.